halkan aan taaganahay waa goob ay isugu yimaadaan xoogsatada ka shaqeysa magaalada Garowe. Xoogsatadan ayaa waxa ay cabasho maalinle ka qabaan joojinta lacagaha danabaysan ee ka hooseeya $1 leena joojiyay. Waxa ayna sheegeen in saameyn ballaaran ay ku yeelatay noloshooda iyo tan qoysaskooda. Waxayna yiraahdeen shaqadii waxay ku saameysay dollar kan u shaqeynay anaga dollar oo mudufanayo wuxuu noogu dhufanayaa Soomaalida ilaa Soomaali baynu nahay macnaa Soomaaligii buu daba taagan yahay 41 buu ku dhufsanayaa waa fahantaa umaleynaya haduu Ilaahay ku reeyay anuu dawladda waxaan ka rajaynayaa lacagaha haduu Ilaahay ku reeyay in ay dabagal ku sameeyso lacagayna kaashka ahaa oo anfacayno ahaa inoo soo celiso haduu Ilaahay ku reeyay xagga shaqooyinka ku soo hartay xagga shaqooyinka haddana dad anaga qurux badan oo cascas oo haduu Ilaahay ku guriyay u cilaamaya baabna loogu keenayba anoo aabbe ka yaaban boo aabiis uu keenay way macnaa waa fahanteen wax amalan ku hayna mala magaalada dad baa sharaxanayo muwaadiniinna wana kuwii magaalada u rafan lahaa u dhiman lahaana waynu nahay sidaan filaya macnaa maxaa yeelay shanta aad baan Garowe ku dhalay maanta hadii la yiraahdo aloo weerar tago diyaar baanu ahay hadeertaana waxaan ka codsanayaa shaqooyinka in jaanis weynaadina laga siiyo haduu Ilaahay ku roon yahay xagga lacagahana culayska naga saaran in laga qaado dawladda iyo haduu Ilaahay ku roon yahay shirkadaha kaararka inoo gooyay wada shaqan kulli waa ka dhaxaysa wax ay isu sheegi karaan waa runta walaalow adduunka horta aad buu adkaaday gaar ahaan halkan aad joogno run ahaantii waxa la joojiyay shilin Soomaaligi dadku waa xamaali dadku isku si wax uma wala haystaan nin waa tijaar wuu barkada lacag ninna waa xamaali si wax ku helo Ilaah baa carruur baa laga soo shaqo tagaa awlaad baa loo soo shaqo tagaa dad baa tuugsanaya soo shaqo tagay dadkii tuugsanaya soo shaqo tagay haddii wixii kushnin la siiyaa 2 kun la siiyaa annaga waxaynu ahaan jirnay sadaqo isagana wax darbay u ahayd wax badan baa u biiraya macna ha u biiraan maxuma intii waa la jooji 1.1 baa baxaya war $1 iyo 1.1 baan haystaa qofka waa miskiin waa walaalkay bootwanka inaan siiyaan rabaa war inta $1 iyo bootwanka u tuura ma oran karaa war $1 ii soo celiyo ilaa anaga u baahanahay ma oran karo waa damiir xumo sheekada sidaa laga bedelo dadku inay gaajo isku cunaan wax yar baa u dhow beenna ma aha hadalkaygu waana arki doontaan Soomaaliyay anigu waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland waa inay isku tashataa ay ka fikirtaa masaakiin baa ku hoos nool ummaddu isku wala si wax uma haysato war wabootu markaa dido $1 ii soo celi ma oran kadhi qof tuugsanay waaba ka naxayaaba qofka wabootu markaa aad siisana waaba kugu farxayaaba farxadii maxaa ku xigayeen naxdin waxay noqotay inaana siininba waxiiba horta boontiyadan hadeer ma taqaanaay la xanibay dadka wax saameyn badan bay u geysteen ama ha noqoto dhalinyarada ama xaafadaha ha noqoto ama magaalada ha noqoto saameyn badan bay horta qaasatan annaga haddii aan nahay danyarta ama aan nahay dadka qaxootiga ah saameyn badan bay noo geysatay taasoo ah qof walaalkaaga ah oo maanta baahan oo ama kaamka jooga ama magaalada jooga hadduu ku dhaho war haye warniyo maanta qadama haysta ee ii soo dir 0.5 ma u diri kartid okay xaafadda laga soo wacay telefoonka 0.5 kugu jira waxa looga yaabaa ciyaalka inay caagad biyo ku doontaan rubax sokor ay ku doonan karaan 0.5ka laguma doonan karo waa ina $1 dita adigina $1 ma haysid marka annaga haddii aan nahay dadka xoogsatada ah saameyn aad iyo aad u weyn bay noo taabatay bajaaj baan raacaynaa hadeer dad baan lacagtii diri karin bajaaj baan raacaynaa dumar baa jooga dad baan lacagtii diri karin waxa looga yaabaa meeshii ay ka diri lahayd 0.3 inay $3 dirto shirkaddan ay u soo celin ay ku rafaado ayadana u baahan tahay horta ma fahantay saameynta marka annaga ay noo geysatay dhib weyn aad iyo aad weyn weeye markii aan rabo inaan qof sida hadda ninka uu ka hadlayo kalanto qof tuugsanayo walaalkaaga aragtay uma diri kartid $1 kaama go'do waxaad soo shaqaysatay $5 ciyaal baa u socota adiga wax unta hartaa inaad wax sadaqaysatana waartaa $1 inaad dirtid numa awoodid marka ma fahantay inaad wax hartaa aad dirsatid ama 2.5 ama 15 senti ama 0.2 inaad u dirtid qofka tuugsanaya uma diri kartid $1 iyo barna kaama go'o $1.1 kaama go'o marka waxaan leenahay anaga
hana laga daayo horta waan qasbannahay annaga qofka haddii uu baahan yahay wuu qasban yahay dad baan waddan u shaqaynaa doolar haddeer lacag soomaali miyaa socotaa meelaha qaarkood markaan ka soo shaqayno waxaana loogu dhuftaa 41 42 dadna waxay ku dhuftaan 40 annagana naloguma siiyo annagana kuma bixinno lacagta haddeer markaan soo qaadanno dolaraan baan loogu dhuftaa 40 baan loogu dhuftaa adna 41 42 igu siisay marka annaga wayna saamaysatay taa waxaana loo qaatay lacag Soomaaligeeni waxa nooga baraka badneed lacag Soomaalideeni sababtoo ay tahay doolarkan waxu ma sheegayo qof wax tada kale marka halkaas kaga soo hadlay boontiyaha haddii qof waliba islaam uu fiirinayo xagga boontiga ama lacagta iyada kaashka ahay oo la diiday dhibaato weyn baan ka qabnaa dhibaatadaas maxay tahay laba qof oo bilo aadan ah waxba isuba qaban karto lacagta doolarka ana gabigeedaba waa baqeelba nin hasta doolar waa nin baqeela laakiin lacagta kaashka kuma aadan baqeelaynin ninka walaalkaas koobka shaaha ka siinaysay ninka kula dhashay wax ka siinaysay maskiinkaas siinaysay marka anigu waxaan dawladda Puntland ka codsanayaa haddaan shacabkeedii ahay lacagtayadii kaashkeedii in loo soo celiyo aad iyo aad baa loogu maarnay lacagtayda kaashka in loo helo haddaan lacagtayda kaashka loo helaynin dee waxaad ogaataa shacabka Puntland nooc waliba ay haataba inay burbursan tahay ay ku dhibaataysan tahay lacagtan doolarka Cabdiraxmaan Xasan Xayir warbaahinta ganacsiga Garowe